بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان أصحابتا ولا لها أحبابتا أن جعلها سود والا كلمة أما هذا كان عنوان كيسا أما هالكدقيسا وحوي سيدا كو أركتان sabuuradda waa yaad magacaabaysaa. kelimad weyn waaye, laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis meel dhow inay ka fiiriyaan oo ay is yiraahdaan sheekhu ma wuxuu ka hadli doonaa ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono mase wasiirada la magacaabi doono ka hadlayaa, ma dowlad goboleed buu ka hadlayaa, ma dowlad federaal buu ka hadlayaa. warku intaasba ma aha, runtaan idiin sheegi waa ka weyn yahay. waayo sida hadalkaygu inta badan uu u dhacayaba waxaan jeclahay inaan ka hadlo mabaadi'da guud iyo arrimaha guud oo inaga ina khuseeya, anigoo ku eegaya fahamka iyo garashada aynu u leenahay dad muslimiina haddaynu nahay diinteenna qur'aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo cilmiga adduunka iyo waayo aragnimadiisa iyo waaqicu siduu yahay iyo bani aadamku sida uu u dhaqmo adduunkan aan ku noolnahay, ilaan keligeen meel cidlaa kuma noolini. intaas baan waxa aan keenayo aan kaga hadlayaa. inta aanan hadalka sii gelin, horta waxaan idin xusuusinayaa waxaan ku jirnaa bishii barakaysnayd ee muxaram. bisha arafo ama bisha muxaram waa bil barako, waa sanadka horaankiisii, waxaana ku jirta maalinta yowmu caashuura oo soonku uu sunno yahay. nebiguna calayhi salaatu wasalaam hal sano in laynoogu dambi dhaafayo uu sheegay. marka insha allah taas yaan la ilaawin. maalinta waxay ku beegan tahay saan rajaynayo sabtida ayaan rajaynayaa inay inoogu beegan tahay. sabtida oo 29 August ah ayaa ay inoogu beegan tahay 10kii cashuura. marka maalin ka horeysa iyo maalin ka dambaysa miduun inaad ku darto ayaa wanaagsan. taas halkaas baan xusuusinta uga baxayaa. qodobkayga haddaanu imaado, yaad magacaabaysaa waxaan ula dan leeyahay oan ula jeedaa islaamka maamulkiisa iyo siyaasaddiisa iyo nidaamkiisa iyo hogaamintiisa iyo mas-uuliyadda sidee buu ku magacaabaa. marka qof kastaa ka faa'iidaysan kara, qof siyaasad ku jira, qof shirkad leh, qof gobol xukuma, qof tuulo xukuma, qof kaaba qabiila, qof madrasa ama iskuul xukuma. dadkoo dhan baa ka faa'iidaysanaya. waxaanu ku salaynaynaa saan idiin sheegay 7 daliil baan keenayaa. 7. marka koowaad qur'aanka kariimka ah, marka labaad sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam, marka saddexaad qowlka culimmada islaamku ma ka hadleen arrimahan maamulka iyo siyaasadda iyo dadka sida loo magacaabo ama loo xusho. qodobka afraad khulafadii raashidiinta ahaa sida ay arrinkaa u hirgeliyeen ama wax ugu maamuleen. qodobka shanaad madaxdii muslimiinta ee caalamka soo martay inaan wax ka soo qaado iyagana siday ugu dhaqmeen, gaar ahaan kuwoodii ku guulaystay. qodobka lixaad dadka adduunka maanta ama dowladaha ugu xoog badan ama ugu dhaqaalo badan ama ugu horumarsan, iyaga laftigoodu sidee bay wax u magacaabaan, sidee bay wax u xushaan, dadkooda u xushaan. tirooyin iyo tirakoobiyo iyo daliilaan ka keeni doonaa. ugu dambayntii adduunka kale oo dhan sida uu arrinta maamulka uu u arko ama uu u maamulo ama wax u magacowdo. marka saan sheegay, cid walba ayaa ka faa'iidaysan karta. nin madaxweynaha baa ka faa'iidaysan kara, waa dadka ugu horeeya oo loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan, gaar ahaan iyadoo beryahan laga hadlaayo soomaalidu dee siyaasadday inta badan jeceshahay inay ka hadashee oo kulligood waa wada siyaasiyiin.
waxaa leeyahay ra'iisul wasaarihii ma goorma laga magacaabaya dalka maxaa loo magacaabi waayey muxuu u daahay sidee looga baaraan degayaa maxaa lagu xulanayaa maxay tahay marka horay baan horta uga hadlay oo marar badan baan munaasabaad badan kaga hadlay yaad dooranaysaa madaxweyne yaa u dooranaysaa ra'iisul wasaare yaa u xulanaysaa wasiir yaad u xulanaysaa مسؤوليات إيه أمانو إيه جاقو حل نوع دونه النقطة ياد أحولانيسا ياد مقعابيسا وحبادن بان كهالي مركون نقون مايو لكن هذا عن بلاو هذا كي جيتسان شيء تضبطاس الدليل بان كينيا وحان قرين يا قرآن الكريم إلهي سبحانه وتعالى قرآن الكريم كأوحو كتل ماميا قفكي حلو ديبا هاي راضا أما هاي وينادئ لبا قضب أما لبا تير أما لبا أرين إن لغو حشو dadku badanaaba say u badan yihiin caadifadooda iyaga oo dee maaragtay raacaya waxay jecel yihiin qofay ku kalsoon yihiin oo iyagu hadalkooda maqlaya oo ama raacaya ama uu maaragtay ku kalsoon yahay wax u dhiiban karo walaalkiisa ha noqdo qaraabadiisa ha noqdo saaxiibkiisa ha noqdo qofku ku kalsoon yahay badanaaba dad badani ma eegaan marka kafaa'ada ama qualification waxa afka qalaad lagu yiraahdo ama kartida iyo aqoonta iyo awoodda qofku u leeyahay hawshaas iyo xirfadda uu u leeyahay shaqadaas inuu guto labadaas mid un baa wax lagu doorta inaad qofka ku doorato xirfad iyo aqoon iyo karti ya uu leeyahay oo shaqada aad doonayso uu leeyahay ya حساب هالنقطة ماليات هالنقطة هندسة أما إنجنيرين هالنقطة دسمة هالنقطة علمي هالنقطة إمامة مساجد اللي قلت تجي هالنقطة سكول اللي جو هالنقطة وحين نقطة قفك لبضع أهرم بيضات كثيرين قفك كل شوية هاي نوجد أما صاحب كيس النقطة أما ولال كيس النقطة أما قرابة سنة إيوه قفك إنه كل شو كارتيدا وقولي إني تاي قدو كل وحول نايو labadaas qodob oo wax lagu xusho dadku wax ku xushaan islaamka iyo aqli iyo sharci wuxuu taageerayaa in aqoonta iyo kartida iyo xirfadda wax lagu doorto ee aan lagu dooran qofkan ma wiilkaygiiba ma walaalkayba ma ku kalsoonahay maaragtay ma qofan wax u dhiiban karaa taaskina wax lagu dooran marka quraanka kariimka إلهي سبحانه وتعالى وحليه آيات لبا آيات ويكسوا نقطة القرآن إن خير من استأجرت القوي الأمين وحا أقو خير بدن قف آتشاق أديبته أما أمك عوضه قف أمان له أود يكرتي يأقون شقدر له آيات كلاته حليه وإني عليه لقوي أمين shaqadaas waan ka soo bixi karaa maxaan aqoonna waan u leeyahay awoodna waan u leeyahay waxa kale oo quraan kariimka ku jirta suuratu yusuf ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim bal hada u fiirso iga dhig wasiirka khazaanada ama kaydka ama maaliyadda ama maamulka wasaaradaha oo dhan wasiirka koowaad oo kaleeto maxaa dhacay waxaan ahay xafiid qof ammaano leh oo dowraya ilaalinaya wixii loo dhiibtay caliimna ah oo cilmi iyo aqoon u leh walidaalika suuratu yuusuf sidaad ka arki kartaan boqorkii masar nebi yuusuf calayhi salaam ayuu u dhiibtay shaqadii ra'iisul wasaaraha sababtu maxay tahay nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa xafiidun caliim قرابة كما ودورن صاحب نما كما ودورن طول نما كما ودورن غير هبل نما كما دورن هذا عي مركز نبي يوسف عليه السلام للدين بما أهين بقرك سيدا موقتا مدى اللباد غير مصر بما أهين دلك بأمر دلان دلك هدي وحالي يراهدو وان أركي دوناي وان كو إمان دونا أدونكو وحما كو قيمية مركو قف شقاء أدي بنايو قف كانوا دلك ما أولا شمس أمر دلان شقوين غاركود ما لغو قيمية لغو ما قيمية با أدونك وأنا أركض دونا إنها قيمة لها القرآن كوجهري يعني تاس السنة ده وجهري سي يا إسلام كوجهري حضارة ديس هي البحر ما ديس أي وجهري سي أدونك ما أنت دولته وحي استعمالان يا مركا نبي يوسف يسقو أن غير مصر أهين أو أن قبطيين تمشي كل رقم أن أهين
reer bani israa'iil ah la luqa ahayn la diin ahayn ayaa waxaa laga dhigay jagadii ugu sarraysay waddankii loo magacaabo ninka boqorkaayna wuxuu isticmaalay arrinkaa aan sheegayno tolnimo iyo qaraabanimo wax kumuu doorane wuxuu wax ku doortay xirfad iyo aqoon iyo ammaano iyo karti saasuu ku yiri innaka alyawma ladayna makiinun amiin nabiyullaahi muusa masar buu ka soo cararay sida aad ogtihiin qisada markuu masar fircoon ka soo cararay madyan buu yimi waa dowlad kale maamul kale weeyo ka baxsan maamulkii fircoon waa deegaan kale oo ka baxsan deegaankii fircoon gabadhii maxay tiri aabaheed ceelka kula kulantay yaa abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin aabo ninkan inoo qabo oo haynoo shaqeeyo waa nin ammaano leh waa nin aqoon iyo awood iyo xoog u leh shaqada inuu qabto markaas buu aabaheedii ku yiri waayahay waa kii yiri innii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni cala an ta'juranii 8 xijaj gabadhayda ayaan kugu darayaa adna 10 sana ii shaqaynaysaa waa la kala saasa heshiiska agreement waa la kala galay mogtahay ya agreement shaqo uu qabanaya 10 sano ayuu shaqaalaysiiyey nabi muuse calayhi salaam ma ahayn nin markaas reer madyan u dhashay ma ahayn qof ay garanayaan xataa aqoon badan ay u leeyihiin yaa dhalay muxuu ku hadlaa afkiisu muxuu yahay luqadee buu yahay waxaas ma ayan u fiirin waxay u fiiriyeen inuu yahay qawiyun amiin saasuu ku xushay labada tusaale iiga filan kuma sii dheeraanayo sunnada aanu nimaadno nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiiska saxiixa ah xilku waa ammaano innaha amaana وإنها يوم القيامة خزي وندامة maalinta qiyaamana waa qoomamo iyo hoog saas darteed nabigu calayhi salaatu wasalaam sidee buu ku xulan jiray dadka uu shaqada u dhiibayo hadday noqoto xagga xoolaha hadday noqoto xagga gobollada iyo waxa hadda loo yaqaan governorska ama gubernatoriyaalka ama duqeyda gobollada waxa loo yaqaano ama ha noqdo abaanduulayaasha ciidamada ama ha noqoto xisaabta iyo ammaanada iyo waxaynta nabigu calayhi salaam wuxuu hadalkaas uu sheegay buu ku xulan jiray ammaano weeye xilkan cid aan ka soo bixi karin uma dhiibno buu yiri nabigu calayhi salaam uma dhiibno marka wuxuu hormarin jiray mar walba qualificationka ya inuu qofku qualified uu yahay shaqada taasuu hormarin jiray nabigu calayhi salaam saas darteed zayd ibn xaritha رضي الله عنه محوءها قبيل أهان قريش ميوها ميا ودكتهن نبي عليه الصلاة والسلام بسوكري إن ساسو أيتها النبي عليه الصلاة والسلام زيد مر والبا ملحب وكل جري دولا مدى يسووا دي بجري دولا كقدم ميا النبي عليه الصلاة والسلام إنتانو لمن جيريون يعني وحي الكهر سند مثلا بصر كهر nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay ciidankii mu'ta inuu hogaamiyo zayd ibn xaarisa radiyallahu canhu yaa ku xigay oo isaga ka hooseeyey oo jagada ka hoosaysa hayay jacfar ibn abi taalib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ina adeerkiis ah oo qurashi ah oo reer bani haashim ah ayaa hoostiisa ka shaqaynayay waxaa ka horreeyey zayd ثم بعد ذلك waxaa ka sii dambeeyey saddexdii uu magacaabay cabdullaahi ibn rawaaxa رضي الله عنه إسقنا وغير مدينة أنصاري ويه معها قرشي كذبنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه أيا قيادة صدح راس مركي جريودين قفتيسان أغنهي أو سيرة أنكو أرغني مركا نبي عليه الصلاة والسلام هل كاسنا وهذا غنقليه وحكى له جرتي النبي عليه الصلاة والسلام رجع أصحابته آتك التقوى بدنا آتك وإيمانك رسلا آتك وأقوم بدنا حق شرع إسلامك قاركود إنه يراهدين جاقوي نو ديب وكديد النبي عليه الصلاة والسلام أبو ذر باكمد رضي الله عنه كوي النبي عليه الصلاة والسلام إنك ضعيف هوشان حوق إيو قرآن إيو مامو إيو مانجمنت وحلا يراهدو إدارو يا بيقوبا هانتا أرنتو تقوى إيو معها يعني محرابكو قفكو كانوا كو يا وتقوى بنيه هاي او الهي لك عبسي صاب بدن كليه ما دين قطو لك عبسي كليه waxa shaqada loogu xushaa qofka ee Abu Dhar qofka al cabsi badnaa ma ku jiray saxaabada way yaraayeen
nebigu calay slam uu diiday saasoo ay tahay khaalid ibn alwaliid radia allahu canhu iyo camr ibn alcaas radia allahu canhu iyagoo markaa soo islaamay ayuu nebigu calayhi salatu wasalaam madax ka dhigay isla markiiba madax buu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam usaama ibn zayd radia allahu canhu wiil yar buu ahaa arrintu ma laha qofkan waa dhallin yar yahay ma laha qofkanu waa reer hebel ma laha qofkanu waa taqwo badan yahay keliya ma laha maya waa inuu haddii labada laysa helaayo inuu ammaano la yeesho taqwana yeesho alla ka cabsigiisuna badan yahay haddii taas uu ku darsado shaqada inuu yaqaan oo kafaa'o iyo awood u leeyahay alxamdulilah laakiin taasu dadka waa ku yartahay sidai culimmadu sheegeen aad bay dadka ugu yartay inaad labada arrin isla hesho qofki inuu taqina yahay shaqadana yaqaan laislama heli karo badanaaba marka kee la hormarinayaa waxaa la hormarinayaa shaqada la hormarinayaa saasay culimmadu raximahumullahu ay ku caddeen nebigana calayhi salatu wasalaam ayay ku caddahay marka usaama ibni zayd 18 jir buu ahaa nebigu calayhi salaam markii uu dhiibay ciidankii baxayey intaanu dhiman nebigu calayhi salatu wasalaam uu abaabulay bal adigu u fiirso abubakar radia allahu canhu iyo cumar radia allahu canhu ayaa ciidankaas ka mid ahaa oo waxaa madax u ah markaas usaama binu zayd radia allahu canhu midda koowaad usaama way ka fadli badan yihiin abubakar iyo cumar iyo ragga lamidii way ka fadli badan yihiin usaama midda labaad way ka da'wan yihiin oo way ka waaye aragsan yihiin midda saddexaad nebiga calayhi salaatu wasalaam way uga dhowaayeen oo ka jeclaa midda afraad waa mawlaa ayuu ahaa ama dadka la dhihi jiray addoonnimay soo mareen raggaanuna waa qurashiyiin reer quraysh ah intaasoo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam xagguu iska dhigay wuxuu wax ku doortay wax ku xushay qofkanu shaqada sida uu ugu habboon yahay uga soo bixi karo awood iyo kafaa'a ugu leeyahay saas darteed buu nebigu calayhi salatu wasalaam axaadiista ku caddeeyey qofkii nimanka madaxda ay si fiican ha u dhegaystaan madaxweynayaasha iyo dadka maamulka haya iyo yay u malaynin adduunkan keliya inay xisaabtooda noqonayso madaxweynayaasha iyo wasiirada iyo dadka gobollada ninkiiba meel madax ka ah yuu u malaynin adduunkan keliya inay xisaabtu tahay oo cidi aanay u jeedin wallaahi billaahi yowma alqiyaama inta lagu soo taago yaa gacmaha dib lagu xiraya katiinad baa lagugu jebinayaa 10 keliya haddaad madax u ahayd katiinad ayaa lagugu jebinayaa katiinadaasna kaa furi mayso ilaa cadaalad mooyaane run inaad la timaado wuxuu leeyahy nebigu calayhi salatu wasalaam qofkii ummaddayda qof xil ugu magacaaba isagoo heli kara qof ka munaasibsan oo shaqadaa uga habboon qofkii ku magacaaba ilaahay buu khiyaanay oo diintuu khiyaanay oo rasuulka calayhi salatu wasalaam buu khiyaanay jannadana carafteeda arki maayo yowma alqiyaamana isagoo katiinadaysan baa la keenayaa cadaalad mooyaane wax katiinada ka furaya ma jiraan hala ogaada marka taasna halkaasaan uga baxayaa sunnada culimmada islaamku ma ka hadleen arrimahan dadka qaar baa u maleeya culimmada islaamku inaanay siyaasatu dowladda sida loo maamulayo dadka sida loo xulanayo qaabka loo magacaabayo inaanay culimmadu ka hadlin bay u maleeyaan bal hadda kitaabkan fiiri waxaa la dhahaa taxriiru suluuk fi tadbiiri almuluuk ayaa la yidhaahdaa alimaam alacraj ayaa qoray wuxuu leeyahay dadka la qoranayo ama la magacaabayo maxaa lagu dooranayaa sidana lagu dooranayaa buu yidhi fii sifaati man yustacaanu bihi yaa la kaalmaysanaya oo shaqada loo qorayaa xilalka yaa loo dhiibayaa wuxuu yidhi calayhi ninka madaxda ah ama madaxweyne ama wuxuu doonaba hada heerku joogaba korkiisa waxa ah calayhi an yastaciina fi lacmaal camalka dadka muslimiinta loo qabanayo waa in loo kaalmaystaa bikufaati alcumaal dadka kafaa'ada leh qualified people waa in loo magacaaba wa fi lmuhimaat athiqaal muhimooyinka culus iyo shaqooyinka culusna biajlaadi rijaal ragga xoogga leh oo aqoonta leh oo xirfadda leh oo kartida leh waa in loo baan fa yufawidu kulla camalin shaqo kasta waa inuu
مريا مقعابة من قدمته قدم راسخة في معرفته وأيدته يد باسطة في درايته وتجربته قف كاسو إنه التجربة أولي وهي أرقنما أولي الشقادة أويقان بين لغة دمية ولا يفوض من أديب يبوير الشقو عمل عالم من قف عالم أهلو قباهيها إلى جاهل قف جاهل وأن قولهين ignorant ومديبيو ولا هذا مثلا هذا دينته يوحى سداد أدي بتقف عن أقوان دينات لهين محين نقوليسا خائن بعد نقوليسا ومد خياني خائن بعد نقوليسا أديمون يوم القيامة مسؤول بدكم نقوليسا عمل علمي أباهن جاهل وما مقعابه وكو عمل بنيه أباهن حب أباهن عيدا كيو ماركتي دمشي حب لو قباهية خامل المد بس كتبر درانو ماركتي دعيبه لو مديبو ولا عمل متيقظ إلى غافل ميل أباهن دكتونان إيو سيدا شقوين كماركتي دي سرطة إيو حرامنتي إيو أمنية إيو إلالينتا أمض إيو ميلها هاسنا قف غافل وحبا أغينا لو مديبو بويري ومكر فإن غفل عن ذلك هدو نيكا مضحضا أريمهاس اسمه جيسيو أما أموغادو فقد باع حقا بباطل حق بباطل كؤيبي واعتاض عن قسيم بباقل وسلط على دولته اللسان كل قائل مقرد دولتي سنة إلا عيبايو أو مارت الله يراهضو بالوحو تدقى فيري أيو كينيا ومركز وحو يري ومن الحكم الباهرة حكموين كواوين وحكم ذا من استعان في عمله بغير كفوء أضاعه وحكمة وي قفكي شقالة دولد يو مامولك قف أن كفاءة لهين كواليفايد أهين وديبه شقالة سوء ضيعي إساقا شقالة سي ضيعي ماها قفكن ماها إساقا ضيعي ومن فوض أمره إلى عاجز عنه فقد أفسد وأوضاعه أوضاع نسيب بابي هدي أمني ودي بتدلان أمني أقون هدي مامول كيود بتدلان مامول أقون هدي مالية ودي بتدلان مالية أقون هدي تعليمتي ودي بتدلان تعليم أقون هدي إنجنيرينج ودي بتدلان إنجنير أقون هدي ودسميه ودي بتدلان دسمه أقون هدي قرشيه ودي بتدلان قرشه ولي قد ميل وهاي يميل وشيء جاي أم ولي قد بأركن يا قرشة سيدا الدنيا لو قديو أما الدولة لو قديو أن أركن يا هدو قديو وحوي وأودع دي سجى بابي أو قبرجيس وحو كقطي لقتيس وكقطي قبرجيس أنا وبح هالك شيخة ابن تيمية رحمه الله تعالى وحليه فيجب على من ولي الأمر قفكي مدح نقضة وحواجبك أن يولي إنه أديو على كل عمل من أعمال المسلمين أعماش المسلمين تندد مسلمين أمانة دي ويوحكني من يجده لذلك العمل أصلح من يجده قفك وهبون الرنتاس شغلاس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا قفك أمور المسلمين توح مسؤولية كقبطة فولى رجلا قفنا مدح كدغي أما أمك عاوي وهو يجد من هو أصلح من المسلمين منه إساقو هيريا ضدك مسلمين تقف وهبون فقد خان الله ورسوله وحديثك هذا الشيء أي شيخ سودري إلهي رسولك سبو خياني مركا وخان المؤمنين بالروايات كلا كدريسان وحو خياني مؤمنين تينو خياني عمر بن الخطاب وحير رضي الله عنه من ولى من أمر المسلمين شيئا أو من ولي من أمر المسلمين شيئا قفكي أمور المسلمين وح أمرك قبطة فولى رجلا لمودة قف كالقعر يسوق من صاحب تنمو قبو يا أو قرابة أما قرابة نمو أمك عابي فقد خان الله ورسوله والمسلمين وحو خياني مسلمين تا يا إلهي رسول كيس يا مسلمين تا ودنبو خيانة مركو وحا واجب كو أهبو يري شقوينك أردن إنو أديبو يعني قبلada iyo meel kasta ay tahay dadka ugu haboon waxa kamid ah buu yiri ciidamada muqaddimi al-asaakir kuwa yaryar saraakiil yaryar iyo saraakiil waaweyn wawlaat al-amwal xoolaha kuwa soo ururinaya cashuur ha noqoto maalada zakada ha noqoto waxyaalaha soo min al-wuzara'i wasiirada wal kutabi kuwa ka wax qoraya washaadin wasu'aati dadka maartay iyagu waraaqaha iyo waxaas iyo gobolada iyo qaada kuwa mas'uulka ka ah xoolaha soo ururinteeda wax kasta waa inuu u dhiibaa xataa kuwa birta tumaya kuwa maaragtay ilaalada ah kuwa
qalcadaha jooga magaalooyinka kuwa maaragtay ilaalinaya suuqyada kuwa ilaalinaya waxaasoo dhan badaacadaha iyo tijaarada waxaasoo dhan waa inay u dhiibaan arrinka afraad khulafadii muslimiintu sidee bay arrinka ugu dhaqmeen cumar ibn khataab radiyallahu anhu wuxuu dejiyey 4 qodob oo uu dadka ku doorto dadka uu shaqo u dhiibanayo ha noqdo gobernatore ama gobol ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama shaqo kale ha noqoto wuxuu yiri la yasluhu alwali illa bi 4 khisal 4 arrimood 4 shardi ayuu ku hagaagi karaa buu yiri qofka shaqada loo dhiibanayo ya ko in naqasat wahidatun lam yasluh lahu al-amr haddii midi uu ka tago mid ka mid ah haddii ka maqnaato waa halaabay arrinkiisu maxay tahay kow quwwatun ala jamci almaali min abwaabi xillihi bal hadda walaalayaal arrintaa u fiirsada ilaahay idinku dhaariyay u fiirsada waa waxaan marar badan ku celcelino aan iraahno dowlad islaam kuma habboona iyo dad muslimiina inay had iyo jeer kalax iyo koonbal la wareegaan oo ummadaha adduunka ay baryaan qodobka u horeeya wuxuu ka dhigay cumar waa inuu ninkaasu dhaqaalaha soo saari yaqaan ururin yaqaan meesha xalaashana ka soo saari yaqaan macna ummadda ninka madaxda ah waxa loo tuuray waa inuu muntij yahay production waa inuu wax soo saaraa waa inuu xintaajiya ma aha qof baryo meelaha u wareega ma aha qof dad kale ku tiirsanna ma aha haddii gobol loo dhiibo gobolkiisa waa inuu ka soo saaraa wixii dadkiisa iyo ummadiisa ay cuni lahayd waa inuu ka soo saaraa siyaasadeedii iyo qorsheedii waa inuu keeno waa inuu yaqaan haddaanu aqoon waa inuu bannaan guriga hooyadiisa iska fariista maaha inuu meelaha yimaado qodobka labaad wa wadcihi fi xaqihi si cadaalada waa inuu u qaybin yaqaan yacni waa inuu xaqiina soo saari yaqaan hadda masalan waxaad tiraahdaa hadduu yahay wasiirka wasaaradda qoraxda iyo dabaylaha niraahno yay xanaaqin wasiirka wasaaradda haddaan meel uun shaqooyinka sheego qof baa xanaaqayso marka waxa uu mas-uulka ka yahay waa inuu yaqaanaa shaqadaas sida uu uga soo saari karo sida uu uga soo saari karo wixii ummadda wax soo saar u noqon lahaa hadday tahay kalluun hadday tahay beero hadday tahay macdan hadday tahay xoolo hadday tahay wax kale waa inuu wax soo saari yaqaan buu yiri oo wax xalaala soo saari yaqaan midda labaadna waa inuu si cadaalad u qaybin yaqaan oo xaqeedii mid walba meeshay lahayd u dhigi karaa macna adeegyadii bulshada u baahnayd waa inuu ku aadin karaa budgetkii waa inuu sidii loogu baahnaa ummadii loogu adeegi lahaa u dhigi yaqaan dadkeedii waa inuu dadkii ducafada ahaa iyo masaakiintii iyo dadkii baahnaa waa inuu gaarsiin karaa midda saddexaad wa shiddatin laa jabaruuta fiiha ninka madaxda noqonaya waa inuu adag yahay shiddatun laa jabaruuta fiiha laakiin dulmi iyo xadgudub aan lahayn xoog waa inuu yahay qof go'aan adag xoog leh ma garanaysaa laakiin aan dulmi iyo xadgudub aan lahayn waa inuu adag yahay qodobka afraad waliinun laa wahana fiihi waa inuu yahay qof debicsan oo naxariis leh laakiin naxariis aan daciifnimo ahayn naxariis aan daciifnimo lahayn waa inuu yahay afartaas qodob buu cumar dejiyey koo waa inuu xoolaha xalaasheedana ka soo saari yaqaan sida loo soo saarana yaqaan ilaan ummad faqiir ah oo gaajaysan meesha adduunka waxba ma qabsan karayse midda labaad waa inuu si cadaalada u qaybin yaqaan midda saddexaadna shardiga saddexaad uu cumar wax ku xulan jiray waa inuu leeyahay awood iyo go'aan adag laakiin aan dulmi lahayn midda afraadna waa inuu naxariis aan daciifnimo lahayn leeyahay ولذلك عمر رضي الله عنه مالو وحكا فيرين جري فيري نبو دمعي إنو جاقو ديبو جاقو دمعي وعمر بن الخطاب جاقو دمعي إنو ديبو مركا اختبار بكو سمي إساقو ورقدي لو قريو لديه جري محا هذا وحلو هذا وحلا يراهدا وريكتم يلا يراهدا ورقدا وحلو مغعاو ورقدا وحلو مغعاو ونينكا مدخداي وقوان كو سو صار warqadii Umar uu ninkii u qorayo hebel waxaan u magacaabay meeshaas iyo meeshaas la qorayo ayuu ninkii waxa yimi cunug yar baa yimi
عنقي يرى فجلس في حجر عمر نبتي سايو عنقي يرى كفريست فقال الرجل ننكي بوحي يا أمير المؤمنين لي 10 أولاد مثله عنقا يرى نبتي هذا كفريست موجدها طبعا لمدان لها وعيال ما دنا أحد منهم مني وليود متكودنا يمسوا الدوام فقال عمر بوحي يري ماشي وحبا هو بالنعمة يمرك عمر فما ذنبي وأنا ما ذنبي بان كلها هاي إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك هدين حريست قلبك إلهي كسيبي أنا ما آيات بان كلها وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إلهي وحو أن حريستا الدوميه سكوان حريستا بدل ثم قال مركز وحي لنكي قراءة وحو سكرتري وحو قرائي مزق الكتاب كتاب جحجحوي والغدي جحجحوي خلاص وين لما تروح لو مقعابا إن كان ملها هذا عي فإنه إذا لم يرحم أولاده بير الرورتي سي هدان أن حريصا فكيف يرحم الرعية يا شعب كيسي سيبو قلنا حريصنا يا بير يا شعب كيسي سيبو قلنا حريصنا يا هل قاعد واحد كأركيسا إني كأيجي جيرين ملاحظة خلافضو قفك أي مير مقعابيان ومدى سيدو قلنا حريصنا يا ومدى سيدو قطريو dadkiisa sida ugu damqanayo dhibkooda gaajadooda rafaadkooda dhibaatooyinka haysta wadooyinkooda amnigooda caafimaadkooda nabadgelyadooda inuu meeshaas inay ahayd meesha kow laga qiyaasayo qofka mas'uulka noqonaya ama ummadan loo magacaabayo halkaas laga qiyaasi jiray qodobka shanaad madaxdii muslimiinta sidee bay u dhaqmi jireen عمر بن عبد العزيز أيان تصالح سوق قادنيا عباسيين تينا قفان كسوق قادنيا عثمانيين تينا قفان كسوق قادنيا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمويين تي أيو مرحلة أمويد أيو ها خليفة العادل كه الدون كان نقول أضرب بلارنا وتشاينا إلى أندلس بو حكومي عمر محو حكو دورين جري حكامتي ستضبا شردي بولها عمر سيفي عنو دقيست تضبا شردي condition 7 conditions تضبا شردي أيو ضدك أو شقادة أودي بنيو وزيرها النقضان قبل قدوميالها كالنقضان دقموين هكا النقضان وزاردو يو وحكا هوسية هكا شقيان تضبا قضب كدورج كو قضب كوهرية ضد أهل التقوى وألك عبس له ودين تيقان أهل الخير والصلاح أيو هرت حلنجري لبو مشاهر في عن وآد أفر بدن أيو سينجري سي آني حولها مسلميتا وقوها صنقون وآني أدعي عنا أحد شهرين ووين أيو سينجري هذا أدونك دولة بدن أساس استعمالها مثلا هذا وحالا يرى هذا وزير هذا إيو إن دولة سنغافورة وحيالها استراتيجيات كأي استعماش وحكملها شغالها وزير هذا إيو إن كمبانيات وين كوربوريشنز كا أو محن كوشة برايفت كا لعقت أدك أوفر بدن مشاركة أدك أوفر بدن قاطع أو ديارها جت ككل جود إسكاله أو هو وين له مشاركة سو كليسي سبب اللي شغالها سيانو كوربشن النقل أو مسوق ماس وسوق وهدي اللي يراهضو ننكي دولة أشقيني أو جكده وين هي وزارة أم وزير أم باركي مشاركة وإنتان والبكون وصدحكم وشنكم وطبنكم مثلا هدي أنا نكوف النين حجابه مركا سيد حجابه آلي وحوي وحولها ضد كانوا دعي حولها مضى أما وينو لا لشقاته مسؤولية دي يشغلين عيسى كلته مركا وحسمين جري مشاهر آد أفي عنا وسين جري صدح هديد يلالوش يوحيالها سنقاتان وكم ممنوع يجري أفر فخفخذة يبخبخذة بجتك لو درسلو انت كانوا شاغو يشوبا كانوا يريدوا يجوغا كانوا غارغو يدقا كانوا بحالكو يسميا كانوا كاس او نين walba oo madaxii uu dawladii iyo budgetkeeda uu ku raro waxero fakhfakh uu ku raro ya taasna uu joojin jiray israafka uu ka joojin jiray oo uu yani uu xadidi jiray nafaqaadka cost control buu ku sameyn jiray shan dadka
قلب كانوا في رسالة بل قرموا سميي عمر هذا أدونك هذا يكون رقمان دولتها هذا عالم كتشوغ أو هرمري هذا يكون رقمان وحويان أو أقولين قفكو هدو أما وزيريه أما حلبانية أما دولة وميل جاء كجيرو وح جناعسي هذا يرات إيران سميك هذا يرات إيران سميك موجود تاسنا وكم منوج هذا عيد قفكو قال كينا إسقى هي جناعسي كينا إسقى كجرا سيادتك كلا ولا ترتميا ها متى كان القانون كيسو ما سو قوسناي وراقي يسو إسكما سو سميسناي يا وحي يسو ما شقدي سي conflict of interest بيد هنقالضو conflict of interest يعني مصلحة دي بقى إسدح جليسة مصلحة دي شقلة هي مصلحة دي قناع سجيسة أي إسدح جلية تاسان الديدية conflict of interest عمر بن عبد العزيز قرني كواد إسلامك أيو مارت أفري توم قرني كور شنو توم قرني كور أيو مارتي صوصاري عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قضب كاللحاد فتح قنوات الاتصال بين الوالي والرعية وكوميونيكيشن يحريرك كدحية قفك ملاحظة شعبك وإني دايركت كونتاكت وين يجرى وحلا يراهدو أما أفك إنجليزي أما حرير توصة قفك هدوية هاي قدومية قبل شعبك وين مرو بهلي كران وزير هدوية هاي شعبك وين هلي كران مدحوينه هدوية هاي شعبك وين هلي كران البابدي سوى إني فريهين وإنان مارتي إيه جرين ضد إيجو إنتي دكتان إسباروين يا حوجا يرو يسوي كوهر رئيسان أو إسباروين ومضى إنتي أودكتان أنا عندنا أركي كرين أو أنا وحسوق جالسين كرين ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حاج كنتو قطعي لي أبو ديجري قفكي إسوق جالسية واحد دبقة أو لوجيستي صدح بقولو دينار بولي يا ماشي فوق هدو ميل فوق يمادنا لعقت انت وكردينينا وحي دولة اللغوها يستو وإن لا يسو الشيء وحي قلض أو دعا مركا شعبكي أما ورباهين تسيد هذا ما أنت أني راهنو أو كاليتو إلي كولوسو ديريسو أو يكو كينتو وحي دليلة أو دعاية أما أي ذاتك كوشقية اللي مثلا نيكا ملاحظة هدو وزير يهي إمي سادد هوسي ماذا وزارة دا أنت كشقيسة كونكو فديت هاي يا هديهين إيا ذاتك كو حريرسان isaga ninka wasiirka ka mas'uul dhowr kun oo qof baa laga yaabaa inuu mas'uul ka yahay amaam Allah haduu madaxweyne yahay waxa laga yaabaa 10 milyan 20 milyan oo shacab ah inuu mas'uul ka yahay amaam Allah marka adiga ma wada arki kartid dadkuna kuma soo wada sheegi karaan shaqaalahaaguna kuma soo wada gudbinayaan wax walba oo dhacaya ee way ka qarinayaan oo albaabada ay dadka xirnayaan waxa loo baahan yahay marka inaad dadka tiraahdo isoo gaarsiiyo oo albaaba gaar ah aad u furto aad runta ku ogaato وهذا حقيقة كوجات أيام لبعي ساسو سميجري عمر رضي الله عنه تضبع ولا حساب تمجري ضدك جوينك وهي خاصة حولها أيوك لا حساب تمجري حولها أيوك لا حساب تمجري مركا عمر ساسوها عبد الملك ابن مروان وخليفة أو نمك أمويين تهرج جوا ويناه ولكن عبد الملك ابن مروان عبد العزيز ابن مروان بمصر وهو قد يجوا برناتوري أما قدومي قبل marka uu nasiixaynayo waxbuu farayay ya articles buu siinay articles ya ama maadooyin uu ku dhaqmo oo siyaasadda ah ayuu siinay wuxuu yiri absud bisharka yani waji furnaanta la dadka u furbu yiri wa alin kanafaka u dabicsanow shacabka wa aafir rifqa fi al-umur dabicsanaanta iyo sahlanaantana umurtaada ku dhamayso fa innahu ablaghu bika taasa ku wanaagsan وميلكو جارسينيسا وانظر حاجبك قفك يريد على تاجن أما سكرتير كده أما قفك نينك ملاحظة أما أميرك حاجبك وحلا يراهضا دتك أكل علية أو أسوق الجلية أو وحنا علية وحنا سوق جلية أو دتك سوق جارسية علينا حاجب كاسر ما قال سكرتير كوكله أما وحال أورنكرا تشيف أوف ستاف كوكله تو ستاف كاجم ملاحظة حفيز كاجم انظر حاجبك فليكن من خير أهلك ذاتك أقوى ناكسن وآل أديك ستهنغ فإنه وجهك ولسانك سبحان الله ووجهك وعربك هاجيبه إساقا ترجمان كاه إلا ذاتك إساقا أركيان ولا يقفن أحد ببابك قفنا إرد هذا يؤمن إلا أعلمك مكانه وإنه كوشيغا أكسوغر سينكرا ما هم تكاقرنا وإنه كسوغر سينكرا قف كست وميش عسيم هذا
لتكون أنت أديكو سي أدقوانك أيالتو تكون أنت الذي تأذن له أو ترده أديكو وإن النقطة كان أما علية أما سوقلية ما هي يسوي صدون وتدك قارن سوعلية قارن سوقلية أنا وزيرك كوقليناي أنا مدحوينها كوقليناي أنا ما ركتها قارن يريد ومشغول أضيقوا ما أنت إنه ما أركي كرو اسكتك أدير ما أركت يا مايا ساسو يلي بالفير كدكتونو بلي كدكتونو وإذا خرجت إلى مجلسك هذا مجلس كاغا أصوب بحضنا وحويري فابدأ بالسلام يأنس بك ضدك فرديا سلام دمان سئات قلبي قود وقبوجس وتثبت في قلوبهم محبتك جعل كودنا قلبي كاغا وماركتي ودقو وإذا انتهى إليك مشكل هدي أرين دب أهلبو كاننا ومشكلة فاستظهر عليه بالمشاورة وذا تشي بدن وفي عنك سميبوي فإنها تفتح مغاليق الأمور وذا تشي يدو حدد تلقلها أو علماء أو أقويانا أو اختصاصيين أرين كاس أدربته هدو أمنية هي هدو دقالية هي هدو وحكالية هي أقون أوله كالتشو يا وأهل الطلاق كالتشو مركا وحي كاحر حرنائي وحياله مارتي أدمجد ويكون فريسا وإذا سخطت على أحد هداد قف عروتنا أرن كان قضب مهم هو قضب كان سياسي قبل فيري وإذا سخطت على أحد قف هداد عروتنا فأخر عقوبته بويري يا يعني ها عقاب دقدق عقاب دي صدق ودقو بريو كالتو حتى لا صادم كالتو عن فيريو يا فإنك على العقوبة بعد التوقف عنه أقدر منك على ردها بعد إمضائها وهي هذا العقوبة دي كنت دقدقتو هدو مسو علين كرت وانا كشالينيس لكن هذا ديب ودقتو هدو بد أولي كرتا وحي أتقوان في عنك قارتو أتكتشتو إن أتقارتو ابن طقطقال الفخري الآداب السلطانية والدولة الإسلامية كتاب لي راضبك صقرين نصيحة داس عبد الملك بن مروان ساد أكتهين وحوي تاريخ ذا وأنك الدولة الأموية أو بقول سنو جرتي نك دي بدو وآسي وي يا وأنك دي بدو وآسي يا دي بدو نك وآسي وي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تصالح أن كسوقاته وحاد عضي نبأ ويمي ننكاسو وحو موجنيا مساجد كفرديا قرآن وآخرينيا تقوى موجنيا وحو يري ما شاء الله عمر عبد العزيز وكوكو تهنيدين أيام أديقا ما ركتي قروحو حكم قروح أديقا كوما أدا قروحو أبو يري مركا عمر وحو كفكري إنو ننكان كدقو قبل كعراق ودن إنو أديبو أيو كفكري لكن قف بو أدريو إنو بالأرنكيس السوء قادو ننكي با أتغي وحو يرنيو ninkan amiirka ah jagada waa kaaga soo dhameyn karaa kuwa dulaalina jira moogtahay oo ku oranaya waxaan maqlay meelaha jooga oo yiraahdo jagada wasiirnimada lobby aan ku soo sameeyno ku soo diyaarinay jagada oo maxaan ku sheexdaa anaan lobby ku soo sameeyno kuwa soo qaabkaas yiraahdo baa markaas uu yiri ana shaqada ku soo dhameynaya maxaa isiinaysaa haddaan Ciraaq gobolkeeda aan ku soo qaado markaas uu yiri xoolo badan aan ku siinay بس أرنك نيكو وحنا سردون هو عمر صدري وركي وجيي مركاسو نيكي ساسكو عيري أو حيري نكانوا إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعطي معقولا يا هذا البوهياوي لكن عقل لمسيد وزادت بلاغته إلى أن تدروا حاجرة هذا الكود بركي هذا يان عضيا بيسو ونقصت زهادته لكن سيدا أرور سنانتو دور سنانتو أيرتاي وحن واتميا خليفة عباسي يسوون عباسية أساسي أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى حاويه وأنك اللي بدأوا هاسي حكم كي عباسيين وشن بقولوا سنة دي سعودي وحيري نم وزير كي سأهبا وحيري أبو جعفر إن لفلان حقا نك هبل اللي يراه الحق بكقول ليه حق بكقول ليه ورقي كل سو شقيه ورقي كامبينك كل سو قلي ورقي الباب ذا كفر جري ورقي حفلة لها كودي جري ورقي قاري وكوكو قادي جري ورقي سان يلي جري فإن رأيت أن تقضيه فتوليه ناحية أبالك سوين أقدو اللي هذا ساسا لسوا بالقدا قف كانوا
ورجي إلى سو كفاحي وي أو ماركتي دي madaxtinimada in la gaaro siyaasadda in la gaaro yaa raggii igala soo shaqeeyey weeye oo campaignka wax ka soo galay markii la tago miraha waa inay gurtaan oo loo abaalgudaa qaabkaas had siyaasadaha wax la isku siiya Afrika iyo dalkeena iyo marka ninkii sidaas uu yiri waa wax wariga jiri jiray wuxuu yiri maad ninkaas waxsiis soo dhaqmay bal fiiri abu xaqiisi ma inkirin wuxuu yiri inna liitisalihi bina haqqan ninkaasu abaalka uu nagu leeyahay fi amwaalina anigu wixii aan leeyahay buu igu leeyahay abaal la fi a'raad almuslimiina wala amwaalihim xaq iguma laha inaan xoolaha muslimiinta iyo sharaftooda aan ku sabido aan u dhiibo xaq iguma laha waa inay dadka madaxda ay labada kala garanayaan qofkaan abaal buu kugu leeyahay abaalkiisa adigu u gud xoolahaaga ugu gud mushaharkaaga oo dhan hadaa doonto si waxaago dhan hadaa doonto si guryahaaga hadaa doonto si ugu abaal gud laakiin ha ugu abaal gudin isaga oo aan u lahayn isagoo aan u lahayn kafaa'o iyo awood iyo aqoon aan u lahayn muslimiinta madaxa u gelin ila khasaarada muslimiinta bixinaya marka aad ma bixinaysid saaxib aad ma bixinaysid waxa bixinaya muslimiinta ka go'an tahay adig kaama go'na marka qof adiga wax kugu leh abaal kugu leh abaal kugu leh dadka muslimiinta ah xaqooda ha ugaga abaal gudin adigu u abaal gud saaso Abu Ja'far Mansuur leeyahay ninkan wuxuu yiri saaxiibow sida aad sheegayso xaq buu nagu leeyahay laakiin xaqaas xoolaha ku leeyahay muslimiinta mas'uuliyadooda iyo xoolahooda kuma laha inna la nuwalli lil hurmati war ri'aya qofku inuu aanu saaxiib ahayn ama uu xurmo nagu lahaa shaqo uguma dhiibno umana magacawno bal lil istihqaaq wal kifaya qofku inuu arintaas mudan yahay oo qualified u yahay amaano iyo awood u leeyahay baan wax ugu dhiibnaa wala nu'thiru dhan nasab wal qaraba qof qaraabanimo iyo nasabna uguma dhiibno ala diraayati wal kitaaba qof isagu yani shaqadii yaqaan oo way aragnimo u leh kama hormarino faman kana minkum kama wasafna qofkii sidaa noqda sharaknahu fi a'malina shaqooyinka waxbaan uga dhiibaynaa oo ku daraynaa waman kana atilan lam yakun lana udrun 'inda an-nas fi tawliyatina iyahu qofkii aan lahayn kafaa'adaasna wallahi وما ديبي كرنو يريو عذر دار ما هيصنو أنا شقة وقول ديبنو نثر الدرر في المحاضرات بلا يكتب لنا وقول ضمبينت محمد الفاتح عثمانيين تنقصوا قادنا محمد الفاتح يعني مرة بدنا كهدنا لي أفر كم ذا ويا رجي وقعد عضاء وقوم ماركتي ووينا صدني سديد أمير هم خليفة أما سلطان أو عثمانية دي صومري دالكن تركيا محمد الفاتح حاكم السديدات بوها وأنا نيكا إسطنبول فرتي وأنا كان مرة بدن كهذلي ميرك لك شيكي لكن سديد دتك حلن جريبة يابل عجائب لي دتك سوء حلن جري إلهي أمريكيس صدح تطالن كسوق قاضية قصديس مدي وحوي صدن سنة أيو حكم كهيي نينك الله يراه محمد الفاتح صدن سنة صدن كاسنة وحا جقد الرئيس الوزراء أو صدر الأعظم بيجرين صدر الأعظم أو نينك سلطان كهوسيو شقد وهوسيو رئيس الوزراء وكالته أو يسوي أقاسمه شقوين كدولة ده أما إمبراطورية إمباير واي وحوين واي دولة وين واي بلارن نينك أرمها يسوي أقاسمه وحاوي لح رئيس الوزراء صومري محمد الفاتح صدن كاسنو لح رئيس الوزراء أما الصدر أعظم نمك الله يراهدو أيا إسبدرين لح داس مقعاوي هل ننبا تركي كاها أصلها تركيا شنتا كالا تركي ما باهم أصل كودو تركي ما هي halka waxay ku tusinaysaa maxamed al-faatih iyadoo lagu eedeyn jiray waniyo dad ajnabi asal koodu yahay ha ka dhigin shaqada ha u dhiibin
ayuu nin wuxuu ahaa nin u dhashay Albania dalkan la yiraahdo oo soo islaam nin wuxuu ahaa Serbia nin kale wuxuu ahaa Greek asalkiisu nin kale wuxuu ahaa Bulgaria ayuu ahaa marka waxa weeye qabyaalad iyo qabiil iyo reernimo iyo maxaan ku sheegaa tolnimo iyo reer hebel waa inuu ahaada wuxuu kuma dhiibi jirin dadkii Turkida ahayd baan hal nin unbaa Turki ahaa shantaas bimacnaa waxa weeye ra'iisul wasaarayaalkii uu 30 sano shaqadiisa ugu culus u magacaabay dowladdaas ballaaran ee imbratoriyadda ah boqolkiiba 85 waxay ahaayeen dad aan asal ahaan Turki ahayn hal nin baka ciidamada markaa u timaad ciidamada badda oo aad u fara badan oo dhowr kun oo maraakiib ah buu lahaa Cusmaaniyadu lahayd ciidamadaas badda iyo maraakiibteeda abaanduulayaasha mas'uulka ka ahaa 5 nin oo u madax ahaa 5 tuba Turki ma ahayn asalkooda waxaan dadkii kale dowladda goboladaas kale ama ajnaas kale u dhashay arrintaas waa lagu khilaafi jiray Maxamed al-Faatix radiyallahu anhu waa lagu khilaafi jiray dadka Turkida waxay arki jireen dad ajnabi asalkoodu ahaa oo soo islaamay oo qalkood xataa gaala ahaayeen asal ahaan soo islaamay inuu shaqooyinku u dhibo laakiin isagu wuxuu ku qiyaasi jiray qofka xirfadda iyo aqoonta iyo kartida uu shaqada u leeyahay saas ku qaadan jiray ku xiran jiray xataa waxaa jiray nin yahuudiya oo soo islaamay oo dhakhtar u ahaa gaar ah isaga dhakhtar gaar u ahaa marka ninkaas markii dambena wuxuu ku arkay inuu talent kale leeyahay oo xagga maaliyadda uu leeyahay markaas wasiir maaliyana wasiir khasaarana uu ka dhig qodobka lixaad oo ii weeriye waxa weeye dowladda maanta adduunka ugu weyn maxay tahay Mareykan Soomaa ha waa dowladda adduunka ugu qanisan dowladda adduunka ugu horeysa ugu xoog badan adduunka maartay kuba كون كتاغلين السنة سيدة بوحة يعني بسي ضد مهاجرين أما إميجرانتس ضد هذا كقول دلنا وأصلها مريكا قول دلنا باي سوق علي بتشوفي كوجو وين جامعة سياسة كنعسية دنا أول به مركز إكتو كسب بحي أو بدن تصاليار هذا كسوق هذا مثلا لباتن وزير أو دولة أمريكا كصومري أو وزارة أو أضك هي سيد وزارة رماد دبدا وزارة محنكو شيء سردونكا دقالها يوحيالا متكا وحين تدعى المريكا كلنا قاركود أفكا حتى أنا قرانين قدوميا قبل أفكا أنا أصيفي عنو قرانين أفكا إنجليز أصيفي عنو قرانين marka waxa kamida Henry Kissinger xageebu ka yimid Germany buu ku dhashay asal ahaan ni Yahudi German ku dhalatay buu ahaa ya wuxuuna kamid yahay ragga siyaasadii Mareykanka dejiyay buu kamid yahay ilaa hadda looga dambeeyo Dr. Henry Kissinger jaamacadna wuxuu ka dhigay Berzinski wuxuu ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynihii Jimmy Carter 1977 بولند بوكيمي بولند حتى أفكيسو ما هن لغة إنجليزية في عيقان حزب الديمقراطية أبوها ناشونال سكيورتي أدفايس أبوها هويني دي كانوا مادلين أوربرايت وهي هيد وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا كتيمي جون دوتش بيجري بلجيوم بوكيم محنكوش وبليهن رجع وزير هذا أما سرادة سوامري meelaha caanka ah idinku aad ku aragteen filimaanta iyo nin la dhihi jiray Arnold Schwarzenegger oo ka noqday gobolka California gobolka ugu weyn Mareykan state-ka ugu weyn Mareykanka governorkeeda noqday wuxuu Mareykanka yimid isagoo xabad Ingiriis garanayn ayuu wuxuu ka yimid Austria ya filimo iyo jimicsiga iyo markii hore dhigi jiray markii dambena siyaasaddu galay wuxuu noqday baan ka soo tag waxa دراسات kala sameeyay shirkadaha Mareykanka la yiraahdo Fortune 500 shanta boqol oo shirkadood oo waaweyn la yiraahdo boqolkiiba 8 iyo 10 dadka asaasay oo sameeyay shirkadahaas waa dad dibadda ka soo hijrooday
oo soo galootina Iran buu ka yimi China ka yimi India ka yimi Australia ka yimi Soomaaliya ka yimi meel kale ka yimi Afrika ka yimi Kenya ka yimi halkaas meel wadamada dibadda ah boqolkii 25 shirkadaha engineeringa iyo technology-ga Mareykanka waa dibadda ka yimi oo dalka u dhalan markii hore u dhalan ama ku dhalan boqolkiiba 38 California keligeed waana wadanka ugu dhaqaale badan dhaqaalaha shanaad oo adduunka waaye gobolka California kambaniyadeeda waa weyn dadkaas boqolkiiba 38 waa dibadda ka yimi weeye California toga la yiraahdo Silicon Valley shirkadaha technology ay fadhiyaan boqolkiiba 52 boqolkiiba 52 dadka shirkadaha asaasay ama saldhigga u ah واجنبي خاصة هو بدنان Chinese iyo Indians ama Hindi iyo Chinese هو بدنان شركة هو حقهم جوجل با كمدا ياهو با كمدا بيج لوتس با كمدا هولسيل كلاب با كمدا يعني انت شركة مركز لا يسكو دارو ودن كمريكان كواحد كسميان 1.7 تريليون يا 2 تريليون كدوات بكسميان او يسوق ليان دقاله 4 مليون oo shaqaalahana way shaqaaleysiiyeen dadweyda ka yimi way ma dadku u dhashaan ku dhashay heer Mareykanku wuxuu ka xaysanayay oo saan ku noqday oo dal weyn ku noqday inuu dadka adduunka isagu ka kaxaysto hadda dhakhaatiirtii Syria dhakhaatiirtii Iraq dhakhaatiirtii maxaan ku sheegaa Jarmal iyo waxa kala qaybsaday iyo Mareykan iyo Holland iyo wadamada Ingiriiska iyo ba kala qaybsaday maxaa dhacay qof dhakhtar ah oo experienced ah oo wadnaha qala ama maxaan ku sheegaa maxaan ku cusbitaalada ugu waaweyn maskaxda qala oo 30 sano oo khibrada leh ama 20 sano oo khibrada leh oo waxay dhaqaale ah la soo galiyo la soo tababaray ayaa adigu isagoo diyaar ah oo ready ah baad qaadanaysaa waa shaqo gelinaysaa marka dadka hadda Mareykan ku nool 300 milyan 40 milyan oo kamid ah waa dibadda ka soo galay maadada wadan ku yimid tusaalaha igu yaabka badnaa wuxuu ahaa ninkii hadda Lubnaaniga ah dalka la yiraahdo Japan waa wadamada lagu tiriyo cunsuriyada oo maaragtay inay iyagu isku kooban yihiin oo ayan maaragtay ogolayn dad kale inay soo dhex galaan shirkadii ugu waaweynaa shirkadda labaad oo wadanka Nissan oo kale shirkadda Nissan way khasaartay khasaaro markay gashay waxa badbaadiyay oo noqday ninka Lubnaaniga Carlos Ghosn oo maalintii dhaweyd carri jiray waa dhaweyd sanadkii hore meeyay soo carri jiray oo Lubnaan jooga hadda marka saddex shirkadood wuxuu ka noqday madax ma aha arrin fudud dalka Japan oo ay ka buuxdo yani sancada iyo CEO-ga dadka sharikaadka madaxda ka ah Toyota iyo Honda iyo Mitsubishi iyo fulan ka ah ay u dhiibato qof ajnabi ah oo xataa aan ahayn يعني نمك عدانك حتى أنا هين عرب أصلهان إني أدي بتان CEO إنه نقول شركة دولي أو ولي بدبادية أو بناها كانوا شركة دي أو يسند جديس خسارة دي نكسر كعضو ربحنا أي سمايسو محد عيوح يقول دورتين كفاءة ديسا كم دورن نكانوا وضم كاسو دل كاسو أما كانوا كارلوس غوسن بدأ كتاب بورا كقري أرنكيز شفت اللي راهو الآخرين كرتا ميلاد كواركرت وضم بيتي الدون كهذا ترتب وجراه قفل بس عقوش ورسن الله ودمدي حتى عنصريين تاها او اول يعني ايغو كلي اسكو كوبنان جري جاينا او كلا جاينا بدو بانت 2 بليون سوما waxay raadinaysaa China Mareykan bay waxay kula tartamaysaa inay iyaduna dadkii aqoonsha laha urursato maxaa dhacay sababtu maxay tahay waxay ogaadeen fiiri waxa la yiri hal sano laba jaamacadood oo ugu badan laba jaamacadood oo ugu badan China oo la yiraahdo jaamacadda Tsinghua iyo jaamacadda Peking mid walba waxa ka qalin jabiyay midna waxa ka qalin jabiyay 570 saynisyahan dad culimo ah oo PhD graduates ah midna waxa ka qalin jabiyay 507 waa ihsaayaad qoran oo maartay science magazine ay nashrisay 570 iyo 507 waa 1078 halkaas 1078kii
oo PhD da jaamacadahaas sayniska China kaga qaatay oo Chinese ah waxay degeen oo ka haystay oo xudxutay jaamacadda University of California ayay kunkiiba degeen ee Mareykanka khasaaraha ka weyn muxuu yahay qof inaad soo gaarsiiso ilaa PhD ya ilaa PhD qof inaad soo gaarsiiso oo science ah oo cilmi ah hadhowna uu ka tago oo meel kale wadanka ka doodo cid kale ka faa'iideysato dee waa adiga xafidan kari waayo haysan kari waayo sababtu maxay tahay dee adduunku waa la tartamaya hadda مثلا Silicon Valley aan sheegay oo shirkadahan hadda Facebook iyo maxaan ku sheegaa Google iyo Apple iyo average-ka Facebook average-ka dhexdhexaadka mushaharka dhexdhexaadka wuxuu noqday $117,000 sanadkii qofka dhexdhexaadka ah Google dhexdhexaadka mushaharku waa $113,000 Apple waa $120,000 macna يعني قف كاسو $10,000 dhexdhexaadka waa average-kii $10,000 waa bishii marka dadkii de halkaas uga yaaceen Chinese-ku uga yaaceen Indian uga yaaceen saas darteed yani dadkii kafaa'aadka lahaa adduunka oo maaragtay science-ka iyo waxa dhan 75% Mareykan iyo United Kingdom iyo Canada iyo Australia kala qaybsatay حتى إنك بالفيري إنك ضدكني وحبرتي أفريقيا فيري أما كينيا فيري أما صوماليا فيري أما وضمدا كلا أو لمدا فيري ضدكودي وحبرتي أقونت سمارت مايندس عقلك يعني هي ساينس لها أوين تأذي بقول كيف الشركة تطبعتن UK United States مريكان إنجليز إيو كندا إيو أستراليا كلا قيبصدي بقول كيف تطبعتن software engineers كي Silicon Valley bay fadhiyaan oo foreign born way boqolkiiba 70 Silicon Valley inta fadhida waa engineero dibadda ka keenay ama China ama India iyo meelo kale ama Soomaaliya ama wax kale ka yimid way uquushi waa la kala boobaya marka adduunku wuxuu ku tartamayaa uquusha iyo dadka inuu soo ayaan darro ma aha marka ayaan darro soo ma aha meesha quraanki sidaas yahay oo sunnadii sidaa ku leedahay oo culimadii islaamku sidaa ku leedahay oo khulafadii iyo dadkii madaxda muslimiinta ah ee magac yeeshay taariikhda wax sameeyay ee qaabkaas kafaa'ada ku socdeen inay ku xushaan wax oo adduunku uu sidaa ku socdo oo ugu dhaqmayo oo uu kafaa'o iyo qualification wax ku xulanayo inaad la soo istaagto 4.5 waa wax ku xulanaya ninku reer hebel ma yahay oo شيء ugu horeeyo aad weydiiso waa reerkee waa qoladee hay muxuu yaqaan male aqoontu leeyahay male muxuu qaban karaa male amaanadiisu see tahay male awoodiisi kafaa'adiisu iyo xirfadiisu see tahay male kartidiisu maxay tahay male muxuu soo qabtay xaguu ka soo shaqeyn jiray male backgroundkiisu muxuu yahay male horay muxuu u qabtay shaqooyinkan male waxaan weydiinaysaa kaliya bas ma yahay reer hebel gobolka hebel ma yahay haddaa halkaa taagan tahay adna waxaad noqonaysaa adduunka inaad ka harto maba la jaan qaadi kartid adduunka haddaad tiraahdo adduun baan la jaan qaadayaa horumar baan samaynayaana been baad naftaada u sheegaysaa cid aad waxaas ka akhrisanaysaana ma jirto adduunkuna uu kugu qoslayaa marka sheekadii ahayd yaa la magacaabaya waad aragteen baan u malinayaa meelaha qaarkiin aad ka fikirayseen inaanan ka hadlahayn ma reer hebelba ma reer qasaxba ma reer quracba waa meesha aan rabno inaan ka guurno oo aan rabno inaan u guurno adduunka iyo caqliga iyo sharcigu sida uu shaqeynayo inaan ku shaqeyno insha Allah ta'ala ayaan rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo aan kaga tagayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa tawfiiqda inuu nawaafajiyo ummadana ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqa xaqa ah tuso ilaahayna nagu hanuuniyo kuwa raacana ilaahay naga dhigo ilaahayna subhanahu wa ta'ala wadada xunna tuso kuwa ka harana ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka leexdana ilaahay naga dhigo
ummadan Soomaaliyeedna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaa inuu Ilaahay dhulkeeda nabadgeliyo iyo naxariis Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo dejiyo barwaaqo uga dhigo akhyaartooda inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala talada ugu dhiibo ardaashana Ilaahay ka kaafiyo Ilaahayna subhanahu wa ta'ala qulubtooda soo dhaweeyo nabadgeliyo iyo barwaaqo iyo isjacayl Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhex dhigo Ilaahayna subhanahu wa ta'ala xaqa uu tuso kuwa raacana ka dhigo Ilaahayna subhanahu wa ta'ala baatilka kuwa inuu tuso kuwa ka harana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka yeelo sidaas iyo khayr aan idin rajaynayo dhalinyarada mustaqbalka samaynaysana sidaasay noqon doonaan insha Allah ta'ala waayeen iyo waxgarad iyo dhalinyaro rag iyo dumar intaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqdiisa waafajiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.